محمد قادر برنامج كان هروسي وغنو وكان هذا نقول يا أستاذ حسن عبد النور وكهذا طبعا حالة الجبل حتى إمكانية شغل الفاصل. بسم الله والسلام يا كمان بشرفنا قيمها يقايها له بكسر في حفلة ولدي مكتوب تجايو بتبدأ التاريخ الواسط رانك وكفر أحسن هاي وحنيت هاي حتى بسوقي قريب أنا وفرط يا مدح غيري أبو هذا الكفر الواسط وهذه قبل كان سوري رمضان يعني كسيو وكذا يا قبل الصومالي وقراءة كفر أنا معلش بقول كذا وبقول لي هاي قد فريق يحاول يتبع لكن في هنا قبل كان فرصتي سيدتي وكشيء دجاجة كريم وكشيء كذي تروح عندك على الصومالي وأنا قبل كان كلية وحكون الصومالي مثل تاريخ اللقاء الله يوم تبيني لا تبيني تقريبا وأربع ساعات إلا يصدق مليون تقريبا كل مليون برك كذي تدخل الدين وأنا قلت الصومالي مثل لقاء الله يوم حكم بها قولنا وخصوصات كبرى وخصوصات كيسي ما يسنا هاي الكريم وكاسيو قلت بوليسه وكاسي جري إلا يدورها عن صاحبها هاي برياني وحكم بها شركة الصومالي فلوس عن ويا جبري وآيات صوماليا خيرات كيسي وحكاسي جدي إلا يسكندريان runtii waxaa taa macnaheedu waxay noqonaysaa inuu ahaa gobol halbowlaha dhaqaalaha ee Soomaaliya laakiin iskiburaag dowladda Soomaaliya markay burburtay gobolkan wuxuu saameyn xubin ku yeeshay deegaanadii ahliga ah soddonkii sano soo dhaafay dadkii dhaqaalaha lahaa xoolaha lahaa waxay noqdeen sabool taasi oo bartay inay tagaan qaxooti muqdisho runtii nasiib darada dadka gobolka ka soo jeeda gaartay kaliya ku tilmaami kartaa waxyaabo badan oo waxay jirto ku burburay waxaa burburay qalabkii ay lahaayeen waxaa kaloo baaba'day noloshii kale oo asaasiga ahayd marka gobolkan dhalinyarada burburjoogkiisii intaan keliya ma ahan way ka badan yihiin laakiin inta caawankaa nasiibku u yeelatay inay nagala soo qaybgalaan way ku mahadsan yihiin inta kaloo laga maqano waxaan u mahadinayaa insha allahu tacaala inay mar dambe kulaga dambe ay yeelan doono inay naga qayb qaataan haddii aan taa kasii gudbo waxaan rabaa in gobolkan dhibaatooyinka haysta inaan mid yar aan mid aan u dul istaago Soomaaliya markii ay federaalka ay qaadatay dowladihii 2000 iyo carta laga soo noqday ilaa iyo hadda waxaad moodaa inuu federaalki si asaasi u socdo oo gobollada qaarkood ay qaateen laakiin wiil shabeelladoos gobolkaani kama faa'iideysanin maysan helin asaasiga noloshii loo baahnaa waxaa dhacayso taariikhda hadda maanta aan taaganahay hooyo miskiin ah inay maanta ay u dhimato $1 qiimo ahaan aan ku tilmaami karno talaalka shareecada cunugga ay siin lahayd iyo hooyadii oo u dhimanayso teetanadii marka taa waxay la mid tahay inaysan noloshii dadkii deegaanka ahaa aysan ku baraarugsanayn dowladdii la rabay inay taa ay dhabarka u dhigtana aysan helin fursaddii dadkii ay gaarsiin lahayd marka waxaan u baaqayaa aan baaq dheer iyo cod dheer aan u jeedinayaa dowladda gobolkaas ee dowladda Soomaaliya ee federaalka madaxdeeda inay u soo jeestaan dadkan dhibaataysan ee la dhibaataysan nolosha inay siiyaan fursad ay ku noolaadaan waana dadkii Soomaaliya dhaqaaleeda abuuri lahaa soo saari lahaa wax soo saarka Soomaaliya taariikhda 2000 iyo 2 ayaan buug Talyaani aan ka aqriyay waxaa Talyaani waxay ka hadlayeen iskandinaafiyada ku iskeed iyo 980 gobolkan leeyahay baardiin leeyahay Milaan ay ku taalo wuxuu ka dhaqaala badnaa saddexdan wadan iskandinaafiyaanka taa macnaheedu waxay tahay inuu dhaqaalaha soo saarkiisu uu ahaa heer maanta statistical ay ku faanaan Talyaani inkastoo dhaqaalaha maanta uu joogo sana helkii 80kii marka saddexdan maadaama ay u qiimeeyaan inuu ka dhaqaala badnaa waxaan aaminsanahay haddii dowladda Soomaaliya u istaagto gobolka shabeelladoos beeraheedii wax soo saarkeedii inuu dhaqaalaha Soomaaliya 17 gobol
qofku ka mid yahay 7 soo haray inuu baahideeda dhaqaale u buuxin karo taa markaan ka soo tago gobolku wuxuu u baahan yahay amni gobolku wuxuu u baahan yahay amni qofka beeraleyda wax soo saarka ah hadduusan haysanin amni way adag tahay inuu wax soo saaro dadkii bulshadii waxay isku tashteen sidaa markaa ka soo qaado maryooley ciidamo waxaa ka jiro madani ah oo u istaagaan hariya habeen inay baahida amniga ay daboolaan ayagoosan dhaqaale iyosan ku haysanin mushaaric ku haysanin daawo ku haysanin rasaas ay ku haysanin marka dadka dowladda ka soo jeedo oo amniga dowladda wax u dhimaayo waxaa macnaha loogu bixi karaa keliya in la abaabulo dadka deegaanka ah in lagu dhiirigeliyo inay amniga ka shaqeeyaan sida walaweyn oo kale waxay ku guulaysteen inay abaabulaan dhalinyaradii inkastoo oo qaab aysan hadda ay ku socoto inay loo abaabulo qaab koonfur galbeed inay hoos tagaan marka gobolkan 8 degme ee ku kooban yahay weli muu istaagin inay dowladda ay u agar baxdo marka dowladda Soomaaliya waxaan u sheegaynaa in taasi aan maadaama wada joogtii aan nahay inaysan dowladdii shacabkii ay xuquuqdoodii inay u istaagaan inay u soo celiyaan taasina ma aha bedelkeedii inaysan macnaha ay ahayn waadin Soomaali waadinka Soomaali wuxuu xaquuq u leeyahay inuu ku noolaado caafimaad inuu noolaado waxbarasho asaasi caruurtiisa u helo hooyada inay heshay dhalaanka caafimaadkoodii marka taa inkastoo aysan waddanka aan ku noolnahay qurbahan Norway aysan ahayn la mid noqonayna kuwa Afrika laakiin haddana waxaa jirto hay'ado u shaqeeyo oo gargaarka in lagula xisaabtamo laftirkooda inay gaarsiiyaan meelaha ay bulshada baahida ka jirto marka ku dheeraan maayo isbaarooyinka dhibaatooyinka kale arrinta hadda afwey ka taagan waxay saameyn ku yeelanaysaa bulsho ilaa iyo 50 kun oo bulsho ayaa caawa ka maqan guryahoodii oo meel ay u hoydaan aysan aqoonin marka jaariyadii haddii aysan ay halkaan boqojooga halkaan Norway kaliya ma ahayn meelo badan ayay ku nool yihiin marka waa in loo istaagaa oo arrinkaa laga dhiibiyaa loolana saacidaa sidii ay noloshooda iyo nololmaameedkooda dib ugu soo xeshan lahaayeen ku dheeraan maayo arrinkaan insha allahu tacaala kulamo badan ka badan oo aan inshallah isla qaadan doono waa idin salaamaya Come on.